maxaa dumarka caatada ah lagu jecel yahay? waa su'aal ay dad badan isweydiiyaan oo laga yaabo in qofku uu siyaabo kala duwan isaga jawaabo, laakiin marka laga hadlayo ujeedada dhabta ah ee dumarka kuwooda caatada ah lagu jecel yahay ayaa waxa ay tahay dhowr waxyaabood. kow, in gabadha caatada ahi ay ka qurux badan tahay tan sida aadka u cayilan oo qacda horeba laga yaabo in indhaha ay soo jiidan waayaan, walow ragga Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ka hela hablaha buurbuuran, laakiin caalamka intiisa badan lagama xiiseeyo dumarka buurbuuran. labo, in gabadha caatada ay ku wanaagsan tahay gogosha oo ay si raaxo leh ay ninkeeda u kala dhammaystaan. tusaale, gabadha caatada ah marka gogosha la joogo waxaa si dhammaystiran isu gaaraya xubnaha taranka ee labada qof, halka gabadha cayilan laga yaabo in si dhammaystiran aad ula gaari weydo oo ay ku celiyaan caddiin, bowdooyin iyo bastooladooyin waaweyn. saddex, qofka marka uu cayilan yahay dhinac walba kuma wanaagsana oo waxaa laga yaabaa in wax yar oo fudud uu jirkiisu ku dhidido kadibna uu keeno shiirka dabiiciga ah ee bini'aadamka. tan ugu muhiimsan ee dumarka lagu xusho waxa ay tahay gogosha wanaagsan, oo ma jirto nin jecel in xaaskiisu ay gogosha ku liidato, laakiin haddana waxaa loo baahan yahay in gabadhu ay in badan ka taxadarto in ninkeeda ay gogosha ku qancin weydo. fiiro gaar ah, gabdhaha waxaa ugu wanaagsan kuwa dhexdhexaadka ah ee tan caatada ah ee lafaheedu isgaarayaan iyo tan cayilka saa'idka ah labaduba ma fiicna. haddii uu soo gaaray like-da muuqaalkan, sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garee ama koobi linkiga taabo. sidoo kale asxaabta waxaan idinka codsanayaa inaad follow iga soo dhahdaan Instagram-ka. mahadsanidin.